waxaanu shirkan kooban u qabanayaa maanta inaan u bayaamiyo mowqifka xisbiga shacbiga reer Somaliland iyo dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka Somaliland 27 July 2019 waxay shacbiga reer Somaliland u ahayd maalin farxadeed sababtu waxay ahayd waxa maalinta qasriga madaxtooyada lagu saxay heshiis ay kala saxdeen axsaabta qaranka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland heshiiskaas oo ay ku dhexdhexaadiyeen beesha caalamka nuxurka heshiisku wuxuu ahaa in la soo afjaro murankii komishanka iyo arrimaha doorashada ee socday muddo sanad iyo badh waxaana heshiisku ahaa in la dhiso commission cusub lana bedelo commissionkii hore baarlamaankana la geeyo mooshin ka dhigaya commissionka xubnihiisa 9 xubnood shacbiga waxa gashay rajo weyn iyo nayaayir in murankii commissionku dhamaaday lana qaaday dariiqii doorashooyinka ku qabsoomayeen ase yeeshee nasiib darro shacbigu wuxuu aad uga dheregsan yahay in muuse jidgooyo u galay mooshinkii sidoo awalba caanka ku ahaa jidgooyooyinka jidgooyadaasna ay ku dhimatay oo ku dhintay mooshinkii baarlamaanka ku socday isagoon gaadhin halkii uu ku socday hase yeeshee anagoo tixgelinayna axsaabta qaranku doorashooyinku inaanay dib u dhicin waxaa labada xisbi qaran wadatashi dheer kadib ku ogolaadeen inay doorashooyinka ku galaan 7 xubnood oo cusub 9 xubnoodna loo daayo komishanka soo socda inuu dhamaystiro iyadoo laga duulayo heshiiskaas laga duulayo waxa muuse u soo qoray axsaabta warqad 25 bishii 8aad iyo golaha guurtida warqadaas kaga codsanayo inay soo magacaabaan xubnihii komishanka cusub ee bedelayay komishanka muddaxileedkiisu dhammaanayo axsaabta qaranka ee wadani u cidiyo golaha guurtidu iyagoo u hoggaansamaya heshiiskaas iyagoo tixgelinaya warqadda uu soo qoray muuse waxay soo magacaabeen xubno cusub golaha guurtida soo magacaabay 2 xubnood oo cusub xisbiga wadani xubin cusub u soo magacaabay xisbiga oo cidna xubin cusub u soo magacaabay mar labaad nasiib darro isagoo jabinaya heshiiskii uu saxaxay muuse waxa uu soo magacaabay xubin ka mid ah xubnihii muranku ka taagnaa ee komishankii hore ee lagu heshiiyey in la bedelo آيات قرآن وحي الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهكذا حديث كمذا المسلمون على شروطهم ولبد بالشيء إن ضدك مسلم في مركب وحوض قلان وهشيس كاسي هي متقبلية مسلم كيس كده قالوا waxay kontaraaga u yaqaan waxa wax laba qof ku heshiiyaan heshiisku ama qoraal ha noqdo ama af ha noqdo saxaafaddu goobjoog bay ka ahayd heshiiskii markii la saxeeyay waxa kale oo Muuse soo magacaabay xubin xisbigiisa
oo aanay isku khilaafsanayn axsaabta qaranka shacbiga somalilan iyo beesha caalamku inaanay ahayn xubin buuxinaysaa shuruudihii uu tilmaamay xeerka number 20/2001 xubintaasoo si joogtaa uga soo muuqata tviyada qaranka iyo tviyada madaxa bannaanba iyada oo fulinaysa ama u ololeynaysa ama u hadlaysa ama difaacaysa xisbiga kulmiye taasoo xeer jebin ku ah xeerkaa aan soo sheegay xisbiyada waddani iyo ucid wuxuu mid kasta gaarkiisa qoraal ugu diray daneeyayaasha doorashooyinka iyagoo caddaynaya inaanay aqbalayn xubin xeerku tilmaamayo inaan lagu darin commissionka xisbiga waddanina inaanu mar labaad aqbalaynin in xubin commissionkii hore ah mar labaad loo soo magacaabo commissionka cusub walaalayaal waxaan u sheegayaa shacbiga reer somalilan in beesha caalamku oo aada u danaynaysa in doorashooyinka inoo qabsoomaan ay isku dayeen inay baajiyaan in khilaaf cusubi uu abuurmo waxay u tageen muuse way la hadleen waxay kala hadleen xubnaha khilaafsan heshiiska ama sharciga hase yeeshee waxay shalay galab kala noqdeen gacmo madhan muuse taas oo dib inoogu celinaysa murankii aynu u qaadannay inaynu xalilay arrintaas oo werwer weyn ku abuuraysa shacbiga reer somalilan ee horumarka dalkooda iyo nabaddiisa jecel iyo saaxiibbada aan ku leenahay beesha caalamka ee jecel hirgelinta hannaanka dimuqraadiyadda somalilan tacabka badanna geliyey xaqiijinteeda waxayna abuuraysaa sawir foolxun oo wiiqaya magaca wanaagsan aynu ku leenahay geeska mowqifka xisbiga waddani waxaanu ku caddaynay waraaqdii aanu u qoray muuse kuna socodsiinay isaga bishii 14 ogeysiiskana aanu siinay dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin beesha caalamku mowqifkaas oo ah in xisbigu si cad u diiday falalka kala ah heshiis burinta iyo xeer jebinta ee uu ku kacay muuse isagoo ah kii loo dhaariyey ilaalintooda waxaa kaloo xisbigu hakiyey xubintii commissionka uu magacaabay ilaa inta muuse ka saxayo gafafka badheerhka ah ee uu kula kacay heshiiska xisbiyada iyo xeerarka qaranka walaalayaal waxaan idiin caddaynaynaa in xisbiga waddani aanu sinaba u aqbali doonin xubin ka mida commissionkii hore iyo xubno muuse xisbigiisa ka socda maadaama uu ka baxay heshiiskii 3 xisbi ee uu ku gafay xeer lambar 20 maadaama uu abuurayo mar walba muran joogta xisbiga waddani markuu arkay tallaabooyinka uu qaaday muuse waxa uu caddaatay inaan xukuumaddiisu aanay diyaar u ahayn in dalkan doorasho ka qabtaan gutaanna waajibaadka dastuurku farayo waxaana maragmadoon u ah in marka muran dhammaadaba uu muuse abuurayo muran hor leh oo cusub walaalayaal muddadii 2 sannadood ahayd ee uu xilka hayay muuse waxaanu kula dhaqmaynay muslina uu run sheeg muslina ugaga qaado hase yeeshee waxaa annaga iyo shacbiga u caddaatay
inaanu ahayn muuse nin dhowraya qowlkiisa xurmaynaya heshiisyada uu galo ixtiraamaya xeerarka qaranka beentana u yaqaana xariifnimo iyo guul siyaasadeed waxaa tusaale idinku filan in muuse warbaahinta isla soo taagay inaanu faragelin xubnihii ay soo magacaawday golaha guurtidu iyadoo ay dhammaantiin ka warhaysaan oo tiifiyada qaar barnaamijyo ka sameeyeen in labadii xubnood ugu horreeyey mid ka mid ah uu muuse ku celiyey golaha guurtida xubintaasina way nooshahay hargeysay joogtaa fawsi baana la yidhaahdaa saxaafaddana way waraysan kartaa madaxweynuhu wuxuu u bareeray inuu shacbigiisa been cad u sheego adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida